Assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii diblomaasi. Dowladda Shiinaha la iskuma hayo 20kii sannadood ee ugu dambeysay inay ahayd dowlad dhan kasta ka samaynaysa horumar. Khubarada adduunkuna waxay isku raacsan yihiin 13 sannadood ee soo socda inay kaalinta kuwaad kala bixi doonto dalka Maraykanka. Barnaamijkeenna diblomaasina waxaynu isku barbardhigaynaa labada dowladood iyo awoodahooda, balse waxaynu isbarbardhig ku samaynaynaa dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha, wax soo saarka gudaha, beeraha, kalluumaysiga, ciidamada, tiknoolajiyadda iyo wax kastoo laba dowladood lagu kala saari karo. Haddaba daawadayaal, hore waxaynu u samaynay fiideo aynu labadan dowladood isbarbardhigaynay. Xilligaasna fiideogeennu waxa uu ku saabsanaa kala weynaanta dhulka oo aynu ku sheegnay in labada dowladood midba ay mar noqoto kaalinta saddexaad dalka ugu weyn adduunka, tan kalena ay noqoto kaalinta afraad. Dowladda Maraykanku waxay ka weyn tahay Shiinaha markii lagu daro badaha ay haysato, balse markii la xisaabo dhul oo keliya waxaa dhul weyn dowladda Shiinaha. Fiideogaasuna dhammaadka fiideogan waxa uu kaaga muuqan doonaa shaashadda. Dadka markay noqoto dowladda Shiinuhu waxay Maraykanka ka dad badan tahay in ka badan 4.3 jeer. Dalka Shiinaha waxaa ku nool 1,440 milyan, halka dalka Maraykanka ay ku nool yihiin 331 milyan oo keliya. Dalagga beeraha markay noqoto dowladda Shiinuhu waa dowladda koowaad ee adduunka soo saarta khudaaraha kala duwan ee ugu badan, waxayna ka faa'iidaysataa ciidda madow ee ku taalla gobollada waqooyi bari ee dalkaas. Balse dhoofinta khudaarta waxay kaga jirtaa kaalinta lixaad, halka Maraykanku uu yahay kaalinta koowaad. Taana waxaa sababay dalagga ugu badan ee ka soo go'a dalka Shiinaha waxaa lagu isticmaalaa gudaha dalka Shiinaha maadaama dadkoodu aad u badan yahay, halka dowladda Maraykanku ay u badan tahay inay dhoofiso dalagga. Marka ay badda noqoto, dowladda Shiinuhu khayraadka badda iyo dhoofintiisa iyada ugu horreysa adduunka. Sanadkii 2019 waxay dhoofisay adduun lacageed oo ka badan 22 bilyan iyo 700 milyan, taasoo 2 jeer ka badan dowladda adduunka ugu horreyn jirtay ee Norway, 4 jeerna ka badan dalka Maraykanka. Markay noqoto khayraadka ceegaaga dalka, dahab, maar iyo dheemanba way haysataa, waxaana usii dheer 80% inay haysato ciido aad u wanaagsan, kuwaasoo laga samayn karo qalabyada korontada, daawada, shidaalka, qalabka militariga iyo waxyaabaha kale sida maalinlaha dadku ugu baahan yihiin. Hantida markay noqoto dowladda Shiinuhu waxay kaga jirtaa kaalinta lixaad, waxayna haysataa adduun lacageed oo gaaraya 13 trilyan, halka Maraykanku uu haysto 45 trilyan, kaalinta labaadna uu yahay. Sanduuqa lacagta adduunku waxa uu qiimeeyay 2019 dowladda Shiinuhu inay haysato 14 trilyan iyo 140 bilyan oo dollar, taasoo ka dhigtay kaalinta labaad. Maraykankana waxay ku sheegtay inuu haysto 11 trilyan 439 milyan, taasoo ka dhigtay kaalinta kuwaad. Waxaase ay sheegtay in 6.1% Shiinaha dhaqaalahoodu kor u kaco, halka Maraykanka 2.23% oo keliya uu kor u kaco 13 sano gudahoodna dowladda Shiinuhu ay kala wareegayso adduunka dhaqaalihiisa. Qalabyada adduunka lagu warshadeeyo dowladda Shiinuhu waxay soo saartaa dhoofisaana 28.4%, halka Maraykanku uu dhoofiyo 6.16%. Dowladda Shiinuhuna waxyaabaha ugu badan ay dhoofiso waxa ugu horreeya warshadaha, qalabyada elektarooniga ah, qalabka guryaha, baabuurta. Sidoo kale dowladda Shiinuhu waxay kaalinta koowaad kaga jirtaa kaydka biraha oo ay dowlad haysato. Biruhuna waa kuwa laga sameeyo waxyaabaha ugu badan ee loo baahan yahay. 5 dekedood ugu waaweyn adduunka 4 ka mid ah waxa iskala Shiinaha. Samaynta maraakiibtana waxay kaga jirtaa kaalinta saddexaad, waxayna sanadkii ka heshaa in ka badan 90 bilyan oo dollar. Maraakiibta tanka weyn qaadi kara markaynu eegnase, dowladda Shiinuhu waxay kaga jirtaa kaalinta koowaad, waxayna haysataa maraakiibta ugu badan ee qaadi kara 20,000 oo konteynar iyo ka badan. 500 oo shirkadood ee adduunka ugu weyn 133 ka mid ah waxa laga leeyahay dalka Shiinaha, halka dowladda Maraykanku ay leedahay 121 shirkadood oo keliya. Dhanka ciidanka markaynu eegno, dowladda Maraykanka ayaa lagu sheegaa inay tahay dowladda ugu awoodda badan adduunka. Sidaasoo ay tahayse marka la isu tiriyo agabyada ay haystaan, waxa ka awood iyo agab badan dowladda Shiinaha. Markaynu eegno ciidamada diyaarka ee dagaalami karaya, dowladda Shiinuhu waxay haysataa 2,188,000 oo askari, halka dowladda Maraykanku ay haysato
1,400,000 oo askari oo diyaar ah. madaafiicda iyagu iswadee dagaalka ayay dowladda shiinuhu haysataa in ka badan 3,800. Maraykankuna waxa uu haystaa 1,465 oo keliya. madaafiicda la jiido ayay dowladda shiinuhu kaga horeysaa, waxayna haysataa 3,600 oo madfac, halka Maraykanku uu haysto 2,740. madaafiicda rida gantaalada madaxyada badan ayay dowladda shiinuhu kaga horeysaa Maraykanka, waxayna haysataa 2,650, halka dowladda Maraykanku ay haysato 1,366 oo keliya. markaynu eegno dhanka ciidamada badda, ayaa la sheegaa dowladda Maraykanku inay tahay dowladda iskale ciidamada ugu adag ee badeed, balse marka laga reebo maraakiibta diyaaradaha xambaara waxa ka aga badan dowladda Shiinaha. marka la isku dardaro gaadiidka badda ay dowladda Shiinuhu haysato, waxay dhan yihiin 777 gaadiid, halka dowladda Maraykanku ay haysato gaadiidka 490 oo keliya. dowladda Shiinaha qalabkeeda ayaa waxa ugu weyn inuu ka xusi karnaa 2 kuwa maraakiibta xambaara ah, 52 frigate, 36 burburiye, 50 korofeyt, 74 gujis, 220 doonyaha xeebaha lagu ilaaliyo ah, 29 miina baar. inta kalena waxay u qaybsan yihiin qalab ay ciidamada baddu adeegsadaan. dhanka kharash bixinta ciidanka, dowladda Shiinuhu waxay adduunka kaga jirtaa kaalinta labaad, waxayna 2019 ku bixisay adduun lacageed oo dhan $237 bilyan oo ciidamadeeda. sanad walbana lacagtaasu kor ayay u kacdaa 15% in ka badan. tanuna waxay ka dhigaysaa dowladda Shiinaha dowlad la soo socota awood aanu Maraykanku u babacdhigi karin. marka la gaaro sanadka 2050, Shiinuhu waxa uu qorsheeyey ugu dambeyn inuu dowladda Maraykanka meesha ka saaro. dabcan dowladda Maraykankuna waa mid arrintaa ka welwelaysa. haddaba hay'adda cilmi baarista ee Pew Research Center ee laga leeyahay dalka Maraykanku waxay samaysay 2019 baaritaan ay ku eegaysay dadyowga adduunku aragtida ay ka qabaan labada dowladood iyo awoodooda. waxayna soo xulatay hay'addaas 34 dal oo ay weydiinayso aragtiyahooda. 12 ka mid ah 34kaasu waxay doorteen dowladda Shiinuhu inay kaga wanaagsan tahay dhaqaalaha dalka Maraykanka, waxayna halkaa kala kulantay dowladda Maraykanku wejigabax. 12ka dal ee doortay dalka Shiinuhu waxay noqdeen kuwo u badan dalalka Yurubiyaanka ah, oo iyagu ah kuwo saaxiib dhow la ah dowladda Maraykanka, balse danaynaya dhaqaale ahaan dalka Shiinaha iyo awoodda uu la soo socdo. dalka Nigeria ayay dadkiisu 83% Shiinaha doorteen, halka Argentina 40%. dalalkii laga qaado codbixinta 40% Shiinaha waxay yidhaahdeen waa uu wanaagsan yahay, halka 40% ay yidhaahdeen ma wanaagsana. dalalka aad Shiinaha u jecel waa dalalka Nigeria, Ruushka iyo Lubnaan, oo saddexda daliba 60% in ka badan dadyowgoodu taageersan yihiin dalka. 58% adduunku waxa uu walaac ka muujiyey markay noqoto ciidanka Shiinaha, haba u darnaadeen dowladaha Jabaan iyo Koonfurta Kuuriya oo ah kuwo ku agyaala Shiinaha, Maraykankana saaxiib la ah. 45% dadyowga adduunku waxay u arkaan hogaamiyaha Shiinaha inuu yahay nin aan wanaagsanayn, halka 29 ay u arkaan nin wanaagsan, haba u badnaadeen dowladaha Kanada iyo Maraykanka.